inanka awdal degan iyo inanta sool ka timaada waxay imtixaanka ku galaan Hargeysa oo caasimadiya waxa muuqata xarumaha hay'adda shaqaalaha iyo furuska shaqo ee gobolada galbeedka iyo barigu inuu aad u xadidan yahay marka iyadoo dheeligaasi jiro in xeerka haddana lagu sii buujiyo hanaanka shaqaalaha iyo imtixaanaadkooda iyo hay'adda ugu weyn inay noqonayso Hargeysa uma arko inay tahay mid cadaaladeed marka waxaan isleeyahay daliil weyn baa ka muuqata qodobka labaad aan isleeyahay inaynu dul istaagno waxa kamid ah qodobka 14aad oo qaab dhismeedka hay'adda shaqaalaha firqada koowaad wuxuu leeyahay waa gudoomiyaha gudida gudoomiye ku xigeenka 5 xubnood oo kale saas u dhigaya marka haday public institution tahay de sidaas ma noqonayso gudoomiye unba madaxweynuhu magacaab iyo ku xigeen iyo agaasime laakiin de halkan imika waxa lagu dhigay qodobka 14aad inay tahay national commission oo commission qaran inay tahay taladuna waxay ka goodaa hadda gudoomiyaha iyo ku xigeenka structure-keeduna ma waafaqsanaa structure-ka national commission-ka ee public institution hay'adda shaqaaluhu isla magac bixinta hay'adda shaqaalaha la yiriyo commission-ka shaqaalaha dawladda lama wada marka iyadana waxaan isleeyahay isma waafaqsanaa qaabku qodobkani u dhigan yahay iyo shaqada dhabta ah iyo structure-keedu marka iyadana bartaasaan isleeyahay ku dhaaf waxa kale oo shuruudaha magacaabista xubnaha hay'adda shaqaalaha oo ay ahayd sida hore aan u sheegay in laga dhigo commission-ka shaqaalaha qaranka haddii xeerka aynu doonayno si inuu dabaqno qodobka H ee ugu dambeeya waxa kamid ah inuu maskax ahaan iyo jir ahaanba u gudan karayo xilka waa waxay takoor ku tahay dadka naafada ah qofka naafada waxaynu ognahay furuska shaqo ee hay'adaha private-ka iyo kuwa gaarka inay aad ciriiri ugu tahay مثلا waxaan saa u leeyahay hadduu qofku gacanta midig qabo oo gacanta bidix uu go'an yahay maskaxaana uu caafimaad qabo taa micnaheedu waxa weeyaan digreetadu madaxweynuhu soo magacaabaya inuu ama uu leeyahay xubnihiisa kamid inay maqanto laakiin shardi ma aha inuu labada gacmood leeyahay gacanta midig gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu wax ku qori karaya ama xubin hay'adka kamid noqonaysa marka tootili qodobkaasi wuxuu ka hor imanayaa xuquuqda dadka naafada ah oo ay tahay il gaar ah in loo yeesho hadduu qofku uu curyaan yahay oo lu kaliya uu ka naafeynayo haddii il uu qabo oo il ay banaan uu il leeyahay de kuwaas oo dhan kama reebi karayaan xuquuqdiisa muwaadin iyo inuu shaqada heli karayo ama digreeta madaxweynuhu ku soo bixi karayo marka waa xeer horseedaya inuu xuquuqo fara badan oo muwaadiniinta 20% dadka naafadii Soomaaliland ama 30 ay ka yihiin inuu baabiinayo innaguna waxaanu ku dhaaranay dalka iyo dadka iyo diinta baynaynu cadaalad ugu shaqeynayno marka golaha waxaan leeyahay qodobada dadka naafada ka hor imanaya xuquuqdoodana aan siinaynin inaynu horseed ka noqono maaha mudanayaasha oo taana inaynu hoos u eegno waan qabaa waxa iyaduna aan doonayaa inaan ku daro qodobka 20aad xilka iyo waajibaadka gudoomiye ku xigeenka arrin buu bartan ku siinayaa inuu caawiyo gudoomiyaha inuu ku simo markuu xilka maqan yahay inuu qabto shaqooyinka loo igmaday xuquuqdan oo qof baarlamaanku ansixiyay oo commissioner ah digreeta madaxweyne ku magacaaban mas'uul qaran ah in saddexda lagu ururiyo shaqadiisa sidii gabadh gudoomiyaha nadaafadda u qaabilsan oo xafiiska markuu ka maqan yahay hagaajisa markuu waraaqo u baahdana u keentaa markuu shaah u keenana u keentaa in shaqada dhan ay gudoomiye ku xigeenka hay'adda shaqaalaha qaranku ay noqoto waxaan u arkaa nusqaan iyo si guudba gudoomiye ku xigeenada hay'adaha dalka iyo ku xigeenadoo dhan xuquuqo fara badan inay leeyihiin marka waxaan qabaa haddii waajibaad intan ka badan gudoomiye ku xigeenka la siinayo ahsan haddii ilaan hay'adii ma iyaga iska dhex dooranaya ma madaxweynaha magacaabaya taana kuma si cadeen qodobkii hore aynu soo dhaafay oo waxa muhiim ah marka gooluhu isku imanaya 5 xubnood haday national commission noqoto haday iyagu iska dhex dooranayaan in lagu qeexo hadduu madaxweynaha magacaabistiisa ku imanaya in la sheego waa dhaliil kale oo hor loo barta iyadana iga muuqata
oo xuquuqo fara badan oo gudoomiye ku-xigeenada hay'adaha guud ee dalka ka maqan baa jira waxa isaguna jira qodobka 3aad firqadiisa 3aad hay'adda shaqaaluhu waxay tixgelin gaar ah siinaysaa dadka naafada waa sax oo xuquuqaha ka maqan iyo dadka laga tirada badan yahay waxaan isleeyahay ereyada tira badnida de horta meel la isku tiriyay ma jirto waxayna horseedaysaa waa boog iyo nabar bulsho dhan oo karaamo dalka ku leh oo muwaadiniina oo xirfadiyahana laga gelayo weli inaynu inagoo goolihii sharci dejinta dalkaana aynu soo xeerdejinta dalkaana aynu qodobo noocaasa laynoo keeno oo aynaan dhugan oo aynaan hoos u dhaadin waxaan u arkayaa ilduuf marka waxaan qabaa axsan erebixinta sharci iyo erebixinta soomaaliyeed inaynu ilgaara siino oo la yidhaahdo dadka laga gardaran yahay laakiin laga tirada badan yahay ilan gardaraa jirtee ummad dhan oo la diina la afa la deegaana somaliland darisa oo shaqooyin xirfadyahana qabta oo dalka kaalin muuqata kaga jira ayaa waxay xuquuqooda ku laayihiin waxaan saliya baar aan loo eegin waxaan diin iyo dadnimo ku salaysanayn oo dhaqan laga soo dhaxlay caado dhaqameed xun oo in la tirtira ay tahay marka tira badnaanta iyo ereyada lagu celcelinayaa waxay niyad-jab ku noqonaysaa dad fara badan oo han iyo himiliye hiigsi leh oo bulshooyinka ka soo jeeda waa dad magacyo fara badan leh waa reeraha kale Soomaaliland la siman oo waxa kamida tumaalada waxa kamida anaasta waxa kamida wardheeraha muusadariyaha madhibaanka waa dad sida beeluhu beelaw yihiin beelawa marka ma qabo in ereyada lagu celceliyo xeerashana aynu ku sharciyeen waxaan isleeyahay goolweynaha ka codso xeerka ugu horeeya gooluhu uu sameyn doono inuu noqdo xeerka tirtirida koorka oo bulshada laga gardaran yahay iyo bulshada kale naafada iyo cidii kale nugulba ee xuquuqo fara badan ay ka maqan yihiin ee xeerashu ayna siinin ee xadgudubyadaasi ku dhaceen ee dhaqanka iyo diinta aan ku salaysnayn inaynu noqono goolihii ugu horeeyay Soomaaliland yeelata ee xeer ka soo saara arrimaha oo goolweynuhuna gudoomiyaha aqbalo adiguna ajandayaasha koowaad aad ku darsataan waa soo jeedimahayga waxaan isleeyahay qodobka 5-aad magacaabis gaar sidoo uu sameyn karayaa gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu cidda magacaabista gaarka loo sameeyaa waa adii cali xaamud jibriil iyo shirgudoonkina kale markaad goolaha la tashataan markaad wax eegtaan ahsan laakiin awood khaas ah idin siisay oo xeerka goolaha inaad waxna magacaabi karaysaan shaqaalaha waxna ergi karaysaan laakiin magacaabis khaas ah waan fahmi kari waayo madaxweynaha la tashanayo waa conflict of interest mar haddii hay'ad dawladeed oo dalka iyo dadkaba u shaqaynaysa oo cadaalad iyo sinaan laga rabo gudoomiyaha la siinaya awood uu magacaabis gaar ah ku sameeyay gudoomiye kasto yimaadaaba ilmaadeeradii iyo ilmaabtiyaashii wada magacaabi doona and that is unfair waxaan isleeyahay qodobka in laguba soo daro ayaaba xaaraana xuskiisa marka laga yimaado oo aan goolaha la hor keeno oo ay hor yimaadaan waxaan laba qodob baan isleeyahay ku gabagabeeyo qodobka kale waxa weeyaan dhaarta qodobka 9 qof 1 milyan qaata oo xafiis maamulin oo mas'uuliyad qaran oo weynaayna saarnay oo karaaniya oo soo shaqo taga caruur fara badan oo leyd laga rabo oo in dawladdu leyd siinay oo shaqaalaha dawladda leyd lama siiyo oo guriga dawladdu leedahay ay ku jirin oo iskuuladu ay bilaash ku hayn milyan qaadanaya gool ahaan inaynu sharciyeeyeen la dhaariyo anu waxaan u arkaa xadgudub kale waxaan isleeyahay inaynu iyaga u turno dhaartuna cuqubooyin bay leedahay cuqubooyin fara badan bay leedahay oo cuqubooyinka ka dhasha waynu garanaynaa sharciyan shaqaale dawladeed oo 1 milyan qaatay inaynu dhaar kula degdegno oo xeerka lagu xuso ma qabayadana waxa kale oo qodobka 6aad leeyahay qofka shaqaalihii wuxuu cabasho u qaadanaya maxkamadda sare qofka shaqaalihii mushaharkiisa inuu ogna xaaladiisa inuu la soconayo 1 milyanka iyo waxaan dhaafsanayn looyarku markuu kiiska galayo garyaqaanadina way fadhiyaan kiisaska qaar baa looyaradu lagu hayar garayaa 5,000 kiisaska qaar marka xuquuq madaniya laga hadlayo gaar ahaan lacag fara badan bay qaataan qofkan lagu xadgudbay maxkamadda sare u qaadanaya maxay tahay rafcaanka ee ka qaadanaya hay'adda shaqaalaha ma awoodi karayaan inuu looyar qabsado waa in bartan lagu qeexaa ma dawladda u qabsanayso oo maxay tahay qareen dadweynaha loo qabanaya oo budgetkeeda wasaaradda cadaaladda bixinaysa oo guddiga cadaaladda ka bixinaysa ma qofka iska bixinaya
waxaan u arkayaa xadgudub kale oo qofka xuquuqdiisa uu ku waayay because of qofkii technique looyarnimo mala oo maxkamadda kaga doodo waraaqa uu ku qorto qofka looyarkiina lacag buu ku shaqeeyaa marka iyada laftirkeeda in la saafo oo la qeexo ayaan qabaa waxaan ku gabagabanayaa mudane gudoomiye dooda imika 82 xubnood maalin kasta gooluhu loo qaybinayo waxaan u arkayaa tacab inay noqonayso waxaan u arkayaa waqti badan inay cunayso waxaan u arkayaa in qof kastaba intii qofka kale uu yiri waranayo marka wixii shilinta laga soo guray aragti sharci lagu eegay tu dhaqaale lagu eegay tu maxay haytay xeerar lagu eegay tu dalalka jaarkeena lagu eegay oo bisil oo 1 iyo 2 iyo 3 lagu dari karayo inay goolaha yimaadaan waxaan soo jeedinayaa xeerarka ugu badan ee dalka lagu maamuli doonaa inay fulintooda iyo dabagalkoodana yeeshaan goolaha wakiiladuna uu noqdo xeer abuure oo xeerar fara badan ay naga baxan taasina waxa ku imanaysaa oo aan ku darayaa sharci yaqaanada goolaha in ilaa 10 qof laga dhigo 5 sharci yaqaan oo xeerasha caalamiga iyo kuwa domestic looga yaqiina iyo 3 sharci yaqaan oo shariicada islaamka PhD ku haysta iyo 2 xeel dheere oo aqoonta Soomaaliga aad u yaqiina imika marka xeer kasto oo akhriyayno waxa laga yaabaa hal erayo Soomaali paragraph uu koobsan lahaa micnihiisa guud in 5 qodob ama 6 qodob uu xeerka qaato marka dad fara badan oo xeel dheerayaal oo dhaqan yaqaan oo suugaanyahana oo erey bixinta Soomaaliga ku fiican buu dalkani qani ku yahay marka shirgudoon ahaan iyo gool ahaan waxaan soo jeedinayaa si culayska xeerasha iyo akhriskooda iyo doodoodu ay u yaraato 1 iyo 2 iyo 3 aan wax uga bedeli karayno guddi kasto xeer loo diraha lagu kaabo 10 gar yaqaan oo gooluhu leeyahay oo miisaaniyada goolaha waxa koowaadana ku darsanaa noqoto dad sharci yaqaan ah oo aqoon sharci leh oo tababar iyo aqoon ay ka dhaxlaan xildhibaanada laftirkooda oo doodaha qaar qayb ka noqda oo shuruucda islaamka iyo PhD ku haysta iyo sharci yaqaan dhaqaalaha yaqiina iyo sharci yaqaan xeerarka yaqiina iyo xeel dheerayaal aqoonta Soomaaliga xirfad dheer u leh aad baad u maasantahay gudoomiyaha gooluhu. Assalaamu calaykum.